in janaasadiisa iyo duugtiisa laga qayb qaato kowdhe niyo dhalinyarada dhan u sheeg inta aad ka gaartid u sheeg beri markaad tukano oo salaada duhur tukan insha allah la duugaa subax hore la soo qaadaa markii midka la dhaqo la karfano janaasa lagu dugto duhurka kadib waa la duugaa insha allah inta aad ka gaartid u sheeg waa aamusnaa cabaaraha life ku jira oo ina wax ma tarayso anaa dad muslimiin aan nahay qadartana waa naqaan inaana adduunkaan la joogaynin oo ognahay haddii geeri oo ruux ka badbaadi lahaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ka badbaadi lahaa oo adduunka baaqi ku ahaa lahaa ambiyadii oo dhan ay joogi lahaayeen muhiimadda hadda life ku soo galay dhan intaas ma ahan aniga oo ay antaan dhan la joogay isaga oo mar walba daqiiqad kasta kadib hadalkiisa niyaddeeda kusoo dhacayo daqiiqad kasta kadib akoon niyaddiisa hadalkiisa niyaddeeda kusoo dhacayo dul tagay qofkii ugu horeeyey ee geeyey isbitaalkan ahaa qofkii ugu horeeyey u tagay ee asoomeedii soo arkan ahaa oo soo istiqaaraystay oo soo dugtay haddii ooyin iyo calool jaleec ee wax tarayso galabtii ilaa haddaa ku dhex jiray mar horaa raba inaan life soo galo oo sababta hadda u soo galana aan idiin sheego haddaa life ku jira walaalkiin maaha waxbaan iga codsan karaa ma walaalkeen telefonkiisa waa kana jaajaraan geliyey maalinkii isbitaalka uu ku jiro ilaa xitaa masajadiisa ma aana furin masajadiisa ma furin masajadiisa ma aana furin laba akoon oo lahaa oo telefonkaan ku jiray anaa hawada ka bixiyey akoonkiisa tiktok anaa hawada ka bixiyey haddaa walaalkiin ahay lifeka waxaa u soo galay bes akoonkiisa kale inaa hawada ka saarno intaasoo kunoo qofoodaan nahay intayna haddaa ribood dhahno hawada wuu ka baxaa duugtiisa iyo ilmihiisa iyo wixii uu ka tagay iyo ciddii deen ku lahayd iyo ciddoo wax ku lahaa iyo waxaas dhan waa isaga soo noqonaynaa keliya waxaan igu imaaday inaa igala qayb qaadatiin akoonkiisa inaa idin tuso kulligii inaa ribood dhahdiin abaalkiina waxaa ku guda ma aqaan abaalkiina jan allah ka dhigo anaa qof dhalinyaro oo baraha bulshada ku jiro isticmaal og baraha bulshada waxa ay tahay dadku waaweyn ma kala og waxaan maxaa ribood la dhaha iyo maxaa akooni ma yaqaanin akoonkiisa inaa idin tusaan rabaa akoonkaa ribood dhehaysiin kulligiina aa ribood dhahdin miya awoodin intaas hadal badan uma soo galin wax kale uma soo galin intaas bas miya awoodin akoonka haddaa ani gacanta ku heen lahaa midkiisa kale haddaa ani gacanta ku heen lahaa maba niisoo hor istaageenba hadalka xitaa waa dhibaa wallahi hadal badan ma dhihi kari akoonkiisa idin tusaa riboodha waxaa kala ka codsanaa walaalaha isoo wacaayo waa idin barayaa teleefon ku hadli kari teleefon mu ku hadli kari intii aa hadli karo waa hadlay inta qofood la hadli karo waa la hadlay maalinka 100 qofood ka badan waa la hadlaa
kuwa hadda kadib isoo wacayaan marka walaalkan gurigiisa saxda aan geey oo dhinaciisa dhulka aan dhigo kadib waa wada hadlaynaa. intii halahaas iga dhaafa ma idin tusi karaa akoonkiisa diyaar ma nahay. walaalaha idhahay sawirka iska qaad, walaalaha idhahay sidaas samee, walaalaha wax ii sheegay dhan kulligiin waa dhawaan ii dhegeysanaa. laakiin keliya waxa idin soo galay u soo galay igala qayb qaata ilaahay dartiis iyo walaalkiin ahay darteed. akoonku ay idin tusaa kulligiin report wada dhah. report waa taqaanii sida loo dhaho magacaasaa ku qoran. magacaasaa ku qoran. qofkii screenshot ka qaadi karo, qofkii screenshot ka qaadi karo, qofkii raadi karo. waxa ku sameynin, wax kala sameynin, dul tag just report dheh. meeshaas korsaas u taabo, markaasaas u taawadeed hoostaas tag report dheh bis. akoonka wada saas uga saar. report account dheh midka koreer sorry report account. maxaa kala doorane I don't know. ani xitaa waxa meesha ku qoran xitaa si fiican ma u jeedi. idinkaa iga taqaaniin ani maskaxdii hadda ma fadhisee saa report u dhigi kartii report u dhaha saas u dhaha. akoonka waa kay walaalaha iga fiican report dhahan. waa idin baryaa akoonka mar hore ugu dambeysay asaga ma isticmaalo. walaalkeen hadduu noo baahan yahay report ah. iskama soo galino ani haddan iskama kiin weydiinin inaan report dhahdin, iskama kii aanan codsanin. dad walaalo ani waxaan iga fiican social media iga fiican. ani mar walban waa idinkugu celceliyaa. youtuber ma ii ani, facebookerna ma ii, qof views wax ku helana ma ii. inta ogweyba ogtaha oo ay taqaan, inta ay aqoonina u sheegaa. dad ani waxaas iga fiican oo social media ku jiro oo magac ku leh aan weydiiyey haddaa soo gashay dadkana report wada dhahayaan indhaan awadan oo ka baxaa. walaalkan beri aan doogeynaa report wada dhah. ilaahay khayr ha idin siiyo. intaas miyay awoodiin miya? hal telefoon ha ka dhigin. wixii telefoon guriga yaala ka wada dheh. okay dada dhooyin ma soo baxaayo. okay let's try. weli wuu soo baxaa. walaalaha talada ii soo jeedinayo, walaalaha waxa ii sheegaya dhan kulligiin taladiina waa dhegeysanaa. waxa hadda idinka codsanaya bes sameeya. kuwii dhahay sawirka ka qaad, kuwa dhahay muuqaalkiisa ka bixi, kulligiin taladiina waa sameynaa. muuqaalada waa ka wada bixiyey, sawirkiisana waa iska qaada. maalinkii aan soo qaaday isniinta hadda maanta uu geeriyooday, isniinta kasii horeysay 3 isniin oo ku jiray isbitaalka. maalinkaas aan soo qaaday aan sawirkiisa saartay ilaa hadda waa ii saarnaa. waa iska qaadaa taladiina waa dhegeysanaa. waxa aa idinka codsanaya bes ii sameey. af soomaali ahaan waxa ku qoran qax beyste a ku qoran qax beyste. ma jiro miya qof oo nooga aqoon badan oo hal mar akoonka hawada ka saari kara? ma jiro miya?
والله هذا الكوي دبويا لير كوي دبويا كاميرا كوي دبوسا إندي أنا يسوع دعاي ما أنتين ما نصنن أنا دون ميلا جو ميل كلمة كان واسق بحلا لايف كان مجرم يا خوف أو هودك ساري كراسي أنا قال لهم يا كسرنا ريبوتك كوعد عليه هذا وكبحها بقول قفوت دي ريبوت كريس هذا وكبحها والله أنا حرست والله أستر صاحي وأقدر ترى قد كنت فراق وأركي بشيرو أبو حاسم يسائل إن كان حقه قدام بيقول لي هواي إن جنازتي سيدوكتي سلقة قيب قاتكوله نيو دنيرة أن أشيك أنت أكيد قارتي تشيك بريمركات تكنو أو صلاة الظهر تكن إن شاء الله على دوغا subax hore la soo qaadaa markii midka la dhaqo la karfano janaas lagu dugto doorka kadib la duuga insha Allah inta aad ka gaartid u sheeg xilligaas dadka inay jaanis hayaan oo mareena dadka akoomada yar ma dhigi karaan okay asuk mobilkiis ana hayo hal akoon ku jira akoonkaas ana hawada ka saaray akoon kala dhiman akoonkaas kala bisina hawada ka saartina idin karo أبايا كويتين أما دقانا مجرى قف أكون هوذا كساري كرا أكون كو أصيغنا كبيع كرا ما أكون كمرك بيش هوذا لغا ساري ومثل أوكي أما ما أكون على دحجلي كرين واي غرغر يوفل كوجي أكون على دحجلي كرين أكون كيس عادي تلفون كيس كوجي أنا بوحي كبحي وعلى وقت ترى لكن متك لواي
anima ya asbuu ka dhume report le mukubaha dadka waxay soo qorooyin in daahira hawada ka saari kara akoon ah wixiisa leeyihiin ma hawada ka saari kara ma ii weydiisaan mar maya emailka ku xiran iyo lambarka ku xiran iyo waxa ku xiran maba la yaqaanaba January-dii ugu dambeysay uu isticmaalay asawba ka xirmaa إلى ما اوكي هاي ابا هاي ما يا ابا محمد دوغاي meel oo gooni qol gooni aan soo dhigay meel gooni halay dhigaan dhahay bariid soo xal sidii la u tagayna soo xal ka soo wadana aba wallahi bilaa waxyaalo fara badan oo dhahay si gooni oo kugu sheegay hadina meeshan ka dhaadhahay maray waxyaalo fara badan oo iga la hadlay laakiin oo aday familkiisa ilmihiisa waxaas ku saabsan alhamdulillah صح muhiimada abaa waxaa waata dhinaciisa inaan dhul dhigo ana hadda waajibkii saaran kaliya ii dhiman waxaa waaye inaan dhaqoon karfano dhinaciisa gacanteeda dhulka ku dhigo bas آمين أبا هاي أبا waxaa leeyahay inaa idinka report garaysiin waa akoonka haddii akoonka magaciisa aan lahaynin muxuu ahaa telefonkiisa iyo gmailkiisa haddii aan lahaynin mala report garay karo walaa hadalka ay dhibaay si fiican mu hadli karay waxaa idinka codsanaa 400 qofood 300 qofood la dhahay 3,000 iyo something meeshaan ugu jirtiin ilaahay dartiis waxaan iga codsanaa daa walaalkiin ahay wiilkaas marxuumka ee walaalkiin uu yahay ilaahay qabrigiisa uu waasiciyo kitaabkiisa gacanta midig Allah ka siiyo dadaal iyo duco waa isugu darnay laakiin anaga geeriga ma kaclin karno فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر إليه كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر عندي يا بق داي قرح دي بشلة كنا قفك نفتي انت لوس استاجنا دتك حلين يقول الإنسان انت وعرنا محاسمنا ياسين على صار قرآن على صار كان على صار انت كدعد وحصل وحمو طريس إلهي حقيسة الله منا كل جين والله ونينا أنا واحد حنون جنا ومرر بحنون جنا وحواي عمري أنا جرميت ماركن أنا أسكبوتين أنا تدسكعلنا دانا أنا ما ساسي دي كرتا أنا ما ساني يلي كرتا أنا ما ساني أنا ما ولي لي بوتي ماني ولي ميت ماركن لكن قف شالك ولا السناي قرب تاجنت دول تاجنت ما هذا ديلو لو وكان ميد ويقاضو انت سو بحسا حدك تقدي لنع وقدي مدحيس قدي قعنتيس قدي إسان وقدي لو قدي هيل بيرو مالسكي على عمل وقبتا والله بالله إلهي نيمة تسن وحا أرك
hadda mood le ku saaray kowdhe welina lifekeyga inaad daawano soo ogahay shaqada ii dhiman wax yar waayo maalmo yaraana ka dhiman haddii ilaahay cimri iyo caafimaad ii daayo waxa ka dhiman wax yar waayo oo qofka meydka xaqa uu leeyahay balan waayo markaasaan kuu jawaabaa adeertaan ani murmuran iyo buuqbuuq iyo negative iyo qof asaga dhanba ilaahay rasuulkiisa aqoonin iyo qof asaga isqarqarina iyo qof akoon wataa user wataa meesha ku jira sawirna uma saarno magacna uguma qorno video asaga uu leeyahay uguma jiro dadka noocaas oo kale marka arag ana waxa igu soo dhacday kaliya qul udu bi rabbin nas igu soo dhacdo malaki nas ilahi nas muxuu ku dara ilahi min sharri alwaswas alqannas min sharri alwaswas alqannas wa kuwa alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas kuwa dadka waswasiyo maxayeen min aljinnati wan-nas jinni dad weeyeen oo kuwa isqarinayo waay ku wax waswasiyo qof caadi sideed camal hada magaciina caruush maxamed ku qoray sawirkiga isaara muuqaaladeeda igu jiro dadku ay jeedaan ma isaalan ina qof dhibaatay ma isaalan ama qof ina wax qaldan dhaho la ku wax qaldan soo qora ama wax qaldan dhahay ama sida qaldan u fikiray wallahi waa idin soo jeesana anoo sidan ka awood badan oo sidan ka xaniyo badan oo sidan ka cod karsan oo waxa aad soo qorteen wixii idin iga jawaabi karo ay idin soo jeesana inta aad daciifka ah hadda wax badan hadli karin marka wax soo qortay muuda ku saaraa bas wali waa isii daawanay waxna ma soo qori kartid wali waa isii daawanay muuda ku